iyadoo bilowgii ciid carafo ay dagaal ku dhex mareen deegaanada Qoriley, Cagaare iyo Tuulo Jalam beelo walaalo ah ee halkaasi wada dega ayaa waxa baaq nabadeed u diray beelahaasi walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay deegaanadaasi isimada cuqaasha iyo culimada degmada Goldogob ee gobolka Mudug kulana ay isugu yimaadeen isimada cuqaasha iyo culimada degmada ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay gudoomiyaha guurtida degmada Goldogob Sheekh Maxamuud Yuusuf Muuse dadkaas ehelka oo halkaas ku leenayo shaydaanku isku diray in dagaalka nabad lagu bedelo xabadda la joojiyo annaguna waxaan rabnaa inaan martiilaahay noo ka qayb qaadano waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo waa ku eedaynaa waxaan ku baaqaynaa nabad ha loo soo laabto sidoo kale waxaa ka hadlay Suldaan Siciid Cabdi Maxamuud waxaan u baaqu diraynaa dadka dhibaatada ay ka dhex taagan tahay dagaalku oo dhibaatada mid horreysay iyo mid socotaba uu ka dhex dhacay meelaha magacooda la soo sheegay sida Qoriley ee lamida annagoo ah odayaasha reer Galdogob oo kuna hadlaynaa afkii reer Galdogob waxaanu soo jeedinaynaa baaq ballaaran waxaanu soo jeedinaynaa codsi waxaanu soo jeedinaynaa ehelnimo waxaan soo jeedinaynaa islaamnimo dadka walaalaha ah islaamka ah deegaanka wadaaga deriska ah oo dhibaatadu ka dhex dhacday waxaanu ku baaqaynaa wax allaale wixii lagu joojin karo oo walaalnimo leh oo tolnimo leh oo dadnimo leh oo islaamnimo leh diyaar baanuna waa uga qayb galaynaa waxaan leenahay inta dhibtaas dhextaalla sidoo kale waxaa ka hadlay Caaqil Bashiir Xuseen Cumar waxaan ka tacsiinaynaa dhibta tirada badan oo meeshaas soo noqnoqotay oo in badan daba jooga waxaan leenahay oo kale waxaan rabnaa haddaan nahay reer Galdogob oo afka Galdogob aan ku hadlayno waxa la wixii nooga aadan inaan ka qaadanaa rabnaa marka waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo annaga ku sima talada waxna nala ka siiyo ehel baan u nahay islaam baan u nahay deris baan u nahay sidaasaan ehelka ka codsanaynaa kelimada culimada waxaa ku hadlay Sheekh Mahad Cabdullaahi Maxamed dagaalku khayr ma leh akhriya adduunba waa halaag dagaalka in la joojiyo ku baaqaynaa waxaan insha Allah tacaala ilaahay ka rajaynaynaa diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano oo qowliya ficil ba uga qayb qaadano anaguna wixii joojintiisa iyo kala dhaahintiisa ah waxaan idin leeyahay oo mar labaad codsanaynaa oo idin xasuusinaynaa aakhiro oo rabbi idin xasuusinaynaa dagaalka xaqdarrada joojiya dagaalkan joojiya dagaalkan dhacay oo xumaaday oo guryihii la galayo oo dadkii la laynayo oo maatadii la laynayo ilaahay uga boqo oo joojiya isimada cuqaasha iyo culimada degmada Goldogob ayaa beelahan waxa ay ugu dambeyntii ugu baaqeen in ay si shuruud la'aan ah ku joojiyaan dagaalada. Maxamed Cumar Afduub, warbaahinta caalamiga ee Kalsan TV, Galdogob.